لمن أطاعه جنات النعيم وسعر لمن عساه نار الجحيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وبعد. وحنو كادلينا أمانتا إن شاء الله دو إلهي هذا قصة ثلاثة الرجال. وحن كادلينا قصة دي سدح ذينين أين كادلينا كواسو معرتا الذين كانوا في الغار أما أصحاب الكهف kuwaasoo godka dhexdiisa ku sugnaa ama asxaabul kahfi. saddexdoodii ayaan ka hadlaynaa qisooda ayaan ka hadlaynaa sida uu leedahay birrul waalideyn sida wanaaga ay leedahay sidoo kale sida uu maaragtaa camalada fiican in ilaah lagu tawassuli karo oo ilaah lagu dhawaa karo wanaaga ay leedahay. maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo baxeen saddex nin ayaa soo baxeen asxaabul kahfi la yiraahdaa. saddexdii nin markii ay soo baxeen waxay haleeleen ama waxay la kulmeen roob badan ayaa ku da-ay. roobkii azaaid u da-ay markaas waxay magan galeen buur ayay galeen. buurtii hoosteeda god ayay ku aalay. godkii ayay galeen. roobkii wuxuu watay dabeel ayuu watay, bus ayuu watay, wax walba watay. roobkii buur weyn dhagax weyn u soo jebiyey. dhagaxii weynaa markuu soo dhaca wuxuu ku habsaday halkii ay saddexdii nin ay galeen ayuu ku habsaday oo godkii ay kasoo bixi lahaayeen albaabkii ayuu ka xaray. dhagaxii may istaageen. mid ayaa markuusa u fadhiyay dhammaantoodii waxay isku dayeen in dhagaxii ay riixaan ay isku dayeen wuu furmo waaye. si kasta isku dayn uu furmo waaye. way fikireen saddexdoodii wax walbay sameeyeen way daaleen. markaasuu mid wuxuu yidhaahday ilaah ugu dhawaano camaladeeni aan soo samey jirnay ilaah subxaana watacaala ugu dhawaano oo wanaagsanaa ugu dhawaano. waa xadiis cadiim ah oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam la wariyey. marka saddexdii nin mid ayaa wuxuu yidhaahday waxaan ahaa ilaahay subxaana watacaala ilaahayow aniga waxaa ahayo yiri. wuxuu yiri midkii usoo horeeyey ilaahayow aniga waxaan aan lahaa gabar oo in adeertay ah ayaa jirtay ayuu yiraahday. gabadhii in adeertay ahaydna ayadana waa doonay oo nafsadeedii doonay. waa faqiira ee wax ma aysan haysanin. sidoo kale waxay weydiisay boqor diinaar ayay weydiisay. maanta waxay imaatay ayadoo gaajaysan oo waxba haysanin. markaasaan boqolkii diinaaran usoo diyaariyey waan siiyey wayna i ogolaatay inaa maaragtaa hooshayga aan ka qabsado ay ogolaatay. gabadhii markaan u dhawaaday oo maaragtaa jirkeedii u dhawaaday markaas waxay uu tiraahday yaa cabdullah ittaqillah walaa tuftix ilqaatim ilaa bixaqi. addoonkii ilaahayow ilaahay ka cabsa ay tiraahday faraantigaygana ha ku jibinin ilaa xaqiisa maahine ha ku jibinin ay tiraahday. weliba ayado oo wejigeeda maskiinka muuqato ama si masaakiin ah socodkeeda aada u yareynays. yaa cabdullah ittaqillah walaa tuftix ilqaatim ilaa bixaqi. marka faqumtu calaa dalika wuxuu leeyahay marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wiilkii gabadhii waan ka kor istaagay. arintaas haddii adiga aan u sameeyey fain kunta facaltuhu ibtiqaa'a wajhik fafarij cannaa. ilahi haddii arintaas adiga dartaa u sameeyey wejigaada dartiis anigoo dalbaa u sameeyey ilaahay dhagaxiina dulqaad ayuu yidhaahday. dhagaxii waxyar ayuu jag yidhaahday meel oo qorax kasoo galaa iftiin oo kasoo galaayo ayuu ka feedmay. mid aadan wuxuu yidhaahday ilaahayow aniga waxaan lahaa dad ii shaqeeyo ayaan lahaa. beero ayaa la fala jiray. beerihii dadkii shaqaalihii markii aan keystay dhammaantooda arrimahoodii way qabsadeen. hooshoodii markii ay bageen lacagahoodii waan siiyey oo waxay ijaar dalbadeen waa siiyey. kadibna way tageen. mid baa lacagtiisii oo shaqaystay ka tagay. markuu u ka tagay maalmo kadib iyo zamano kadib uu usoo laabtay. markaasuu wuxuu yidhaahday xaqaygii isii oo kugu lahaa kaa shaqaystay isii. asaa ka tagay lacagta marka waayo. markaasuu wuxuu yidhaahday ugu sii dar wuxuu yidhaahday ittaqillaha ilaahay ka cabsa ayuu yidhaahday xaqayga isii buu yiri. markaasuu wuxuu yidhaahday xaqaaman ku sii haa. markaasi lo-dan iyo beerahan iyo lo-da kuwa ilaalinayo ma aragtaa qaado ayuu yidhaahday. markaasuu ninku wuxuu yidhaahday mi uu jeesjeesaysa ayuu yidhaahday. markaasuu wuxuu yidhaahday walaa tastahzi'u bika anima kuwa jeesjeesayo uu yidhaahday qaado xoolahan iyo waxaan lacagtaadii aan ka tacbay iyo xaqaadii aan ka tacbay qaado. anaga maanta mid naga shaqaystay oo baxay inaan dabagalna iska wadaayay kii naga shaqaystay aanba waxooda aan siinayn dadkeena qaarkood.
maantan waad arkaysaa dadkan waxay sameynayaan nin wax uu xoolo ka shaqaystay beer u fal wax walba u toosiyey kadibna iska baxay dad badan ayaan dad way qaateen ninkaasa ka tagay zamana kadib uu soo waqti kadib uu soo laabtay markaas wuxuu yiraahday lacagteygii si uu yiraahday xaqii ku lahaa ilaahina ka cabso uu yiraahday markaas wuxuu yiraahday xaqaagii waa kana beertaan iyo arigahan iyo waxa ilaalinaya dadka ilaalinaya qaado markaas ninkii inoo yaab wuxuu yiri uu jeesjeesaysa uu yiraahday maya oo dham uu jeesjeesaye qaado aniga ku siiya xaqaadii iyo maalkaadii ka shaqeeyay qaado ninkii sidii uu ku qaatay waxaan u dhiman midka saddexaad aan u dhiman midna wuxuu yiraahday midkii ugu dambeeyay oo saddexaad wuxuu yiraahday Allahumma inni kuntu walidani shaykhani kabirani wuxuu yiraahday Allahumma in kanat ilaa waxa ii sugnaado yiraahday aan leeyahay waalid law waalidiin aan leeyahay oo waaweyn oo duqduq ah oo aad u gaboobay aan leeyahay sidaa darteedna waalidiintayda maalin walba waxaan u keeni jiray caano u keeni jiray caanahaas ay cabi jireen markii ay cabaan ay caruurtayda aan sii jiray maanta wuxuu yiraahday maalin maalmaha kamid ah waan ka soo daahay markaas waxaan arkay ayagoo hurdeenan arka oo seexdeen caanihii aan soo qaaday waan kor istaagay waana diidayay inaan ka kiciyaan diidayay asigoo kor istaagsa waalidiintiisa ayna hurdayaan hooyo aaba ay hurdayaan oo wuxuu yiraahday ilmahayga iyo caruurtaydana jilbahayga taataaganiin caano ay leeyihiin ayagoo baay hayso xaaskiisii uu ka soo tagay walabadii waalidiinna way hurdayaan waalidiintii ma ka soo kicin wuxuu diidayaa inuu kacawdo oo ka kiciyo hurdada ka dhibo diidaya wuu dhaafay caruurtiina lugiisii taagan yihiin way ooynayaan aaba ay leeyihiin baay ay ooynayaan waalidiintiina xaggaas ay jiifaan naagtiina wuu ka soo tagay wax ma uusan siinin ilmihii hurdaa qabatay halkay ku hurdeen asiga xataa hurdaa qabatay intuu caanaha oo haayo markaas waalidkii uu soo kacay caanihii oo labadii waalidiin ka waraabiyay way cabeen lamadoodii marka ay cabeen markaas oo ilmihiisii ka waraabiyay oo hadana xaaskiisii ka waraabiyay markaas wuxuu yiraahday ilaahayow fa in kunta ta'lamu fa in kunta fa'altuhu hadii aan u sameeyay arinta fa in kunta ta'lam hadii aad ogtahay yiraahday anni fa'altuhu ibtighaa wajhik arintaas inaan u sameeyay dalika ibtighaa wajhik arintaas adaan u sameeyay wajigaada dartiis anigoo dalbaayo fafarij anna ilaahayow naga feed ayuu yiraahday godkii wuu wada feedmay aad meel ay ka bixi karaan oo ka feedmay sidaasayna oo fakadeen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiisa ama adiga camal wanaagsan aad samaysid aad ilaah uu tawassuli kartaa camal wanaagsan la imow qisadan halkaasay ku ogtahay waa qisadii abid ugu wanaagsaneed ugu fiicneed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh